iyo walaashiina hodmana oo markale idinku soo noqotay markaan waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo codsi badan oo laysoo dhiib dadka ay yani iga soo codsadeen codsigaas oo ah kareemadeyda meelaha ay u fiican yihiin aniga horta inta badan kareemada dadka dhaawaca ah aan sameeyaa macnaha dadka wajiga ka dhaawacman oo kale oo gaduud ka galay ama fiman ama haraha geesaha kale oo kaleete iyo jirka qofka markuu caatoobo hilib saarnaa jeexjeexa gala saliidaha timaha bixiya waxaas oo dhan aan sameeyaa marka haddii aad kasii faaloodo kareemkayga wuxuu leeyahay wax yacni oo damaanad ah oo haddii aad qaadato oo sida adiga rabtid uu kaa dhigi waayo waxaa aniga raali ku ahay qofkaas markaas lacagtiisa in loo celiyo macnaha kalsooni ahaan sababtoo ah waa 100% kareemadeeda waa la hubaa midda kale gabdhaha inta badan waxa dhaawaca waxaa waaye dukaana la tagaya nin iska rabo inuu shaqaysto ilmihiis inuu bishto rabo ay waxay leeyihiin wax ii qas asiga waxaan dhakhtar maaha hore muusan usoo baran qof dhakhtar ah makala tashanin bis maskaxdiisa waxaan waa lagu cadaanaya iskaga qas uu qasaya hadhow qofkii waxaa arkaysaa dhabanadii inta ka bislaaday wajiga fiman kaga soo baxay waxyaabo badan arkaysaa marka semberin casaada hore idinku sheegay instagramkayga kusoo sheegay snapchatkayga ku sheegay waxaa keena muxuu ahaayo kareemka habeenkii inta la marsado lagu seexanayo wuu keenaa sababtoo ah kareemkii waa marsatay habeenkii waa ku seexatay meeqa saacadood waa habeenkii mataqaani subaxii soo kicisay intaasoo saacadood dhan inuu kareem idin marsanaado looguma talagelinba kareemka waxaa loogu talagalay in la marsatid 10 daqiiqo ilaa hal saac nus saac ama hal saac iska dhaad inuu ku marsanaado kadibna aad ka qubeysato wajigaaga si nadiif oo u noqdo marka gabdhaha Soomaalida mar walba waxay sameeyaan kareemka habeenkii lagu seexanayo ayaa lagu cadaadaya ay aaminsan yihiin kareemka waa la marsanaa waa lagu seexanayo markaas qof walba uu iimaanaya kareemka dhisaan iga noqday ku qasay nin hebel ay soo qasay nin hebel calooshiisa u shaqaysanaya haddii aad rabtid adoo qurux oo wajigaaga qurux ku yahay inaad cadaatid waxaa loo tagaa qof kasaayo waxaan oo dhan muxuu ahay ama qof dumar oo wax walba midda kale dhibaato kale way jirtaa qof baa kareem inta u timaad tagaana waxay leeyihiin kareemka amarsatid ii sheeg waa cadahay inaan soo gato aan rabaa okay qofkan adi isku maqaar ma tihiin adi waxa laga yaabaa xasaasiye inaad ku qabtid waxyaabaha iyada isticmaalayso qofkan markuu kareem ku qasayo kale waa inaad u sheegtaa waxyaabaha ku dhibaayo aad dhahdid saan insaan qabaa si markaas adigan wax ku caabiyo lagu sameeyo marka aniga kareemadeeda inta badan waxay qaabilsan yihiin dadka dhaawacyada ah wajiga gaduudka ka noqda faraha madmadowga ka gala xusulada jilbaha timaha aanan baxaynin batata tintana mar walba markay saliid la'aan tahay ma baxdo timaha mar walba waa inaad saliid si fiican u marisaa ku masaajeysaa ku seexata saliid ay rabtaa ahaato sababtoo ah godadka timaha ka soo bixi lahaa hadii aqalka timaha saliid marin oo qalal ka dhigtid godadka timihii ka soo bixi lahaa qolof baa koraya marka tintaada booskeeda kama dhaqaaqayso inay sii go'do mehe ma sugaysid inay macnaha ku qurux badnaato waxa kale oo dilina waxay tahay color la marsanaya jilcisa la marsanaya hebelo waa marsaday kana yeere marka asxaabay inta badan aniga waxaan dhiiban lahay hadii aad rabtid adigoo white aad u cad hadana qurux badan wajigaaga gaduud lahayn fin lahayn problem lahayn qof yaqaana la tashtaa gabdhahana waxay badankooda yaqaanaa markaad weydiisidoo kale maxaa marsad marka asxaabta fiidiyoga inaan ku sii dheeraado marabi hadii intaas cilad aan sheegay aad qabtid ila soo xiriir waxaan ku soo qori doonaa meesha hoose instagramkayga lambarkayga igala soo xiriira waiting xataa waa sameeyaa laakiin waitingka xataa markaan sameynayo waxaan ku daraa wax qofkan brikamaan sidoo wajigiisa wax dhibaato aysan ugu imaanin oo difaacna siinaa macnaha jirka marka inta aan soo sheegay hadii aad qabtid ila soo xiriir waxa aniga alaabteeda online ahana u iibiyaa hadii aad Afrikadan kale aad joogtid hadii aad gobolada joogtid intaas waan soo diri karaa marka waxaan idin leeyahay quruxdiina ku dadaala hadii aad wajigiina dhibaato ka aragtaan ama madaxiina ama jirkiina horta gabdhaha Soomaali inta badan madaxa ma wadanayaan jirkii wajiga bisay fiiriyaan marka waxaan idin dhihi lahaa muxuu ahaa isqurxiya idinkoo isqurxinaya macnaha oo wax whiten leh marsanaya hadana waxa heli kartiin wax wajigiina qurux ka sii dhigay liisho ka dhigay wala baxa inta la tagaan loo tagaa markaas oo Shivaya Agnisol 10 days bilaa isku dardaray intoodan isma qaadan karaan sababta kareemada kulul ee ka wada midiyeen xamara joogta ama dhulka oo kuleel joogta waxaas amal ma ku anfacay marka
haddii aad dhibaatooyinkaas soo sheega aa qabtiin ila soo xiriira, waa idin soo dhaweynaya, discount fiicanna waa idin sameyn doonaa. mida kaleetana alaabteeda 100% waa la hubaa. haddii sidii adiga aad rabtay uu kaa dhigi waayo lacagtaada waa celis. marka commentiga iigu reeba waxyaabaha aad jeceshihiin inaan muxuu ahay soo sameeyo. like-na yar iska baqayna, share, subscribe intaba haddii aan idinka arko intaas inaa ii sameyseen anigana fiidiyooyin macnaha dhiirigelin aan ka qaadanaya. fiidiyooyin badan oo soo sameyn doona anoo make up sameynayo, qosol prank wax kasta oo soo sameyn doona insha Allah. ila socda. anigana waxaa idin leeyahay 100% waa mahadsantihiin sida sharafta badan aan mar walba commentiyada quruxda badan ay igu soo qortiin ka badan waa rajayn doonaa insha Allah. bye bye.